السلام عليكم سو dhawaad walaalaha qaaliga YouTube channel-ka nagala socota qoyska qarniga marka la isku soo noqdo wanaagsan waa walaashin Shamis walaalihii hore noola joogay walaalaha gadaal nooga soo biiray dhamaantiin waa mahadsantihiin hadaa channel-ka ku cusub tahay ee markii ugu horeysay aad channel-ka soo booqato subscribe-ka hanaga iloobin wixii share iyo comment iyo like dhiirigelin waa dhinaciina waxaa rabaa inaan idinla wadaago arrin maalmahan socotay laakiin hadda dantay oo hadana dib ka soo cusboonaatay gabar barnaamij maalmahan socday ka qayb gashay oo la dhahayo tijaabi jaceelkaaga oo arintii lagu furay oo baraha bulshada dhan qabsatay dadka qaar oo aniba aan kamid ahay ee ka aaminsanay arintan inay baraanki tahay oo wax ay isla ogyihiin ay tahay xilligaas maana ka soo hadlin muuqaalada waa idin la soo wadaagi doonaa gabadhii marka la taa la wareystay xaqiiqda jirteena ka hadashay bal muuqaalada ila soo daawada kadib waa isku soo noqonaynaa ka kuri joogo aad xadabina asaga kugu sheega waa iga furta xilliga laga bilaabo bilcad intaan guriga tii boorsada bisha xitaa soo qaaday alaabta kale xitaa gabadha wiil عبد الفتاح ميا walaal عبد الفتاح واير لو يوناني waxaa duubayna barnaamij loo tijaabi jaceelkaaga inuu daacad ku yahay inuu daacad ku yahay kadibna barnaamijka qafka ka soo qayb galay marka uu dhaaqay qafka Cabdi Fataax jeclaay marka qofkaas magaciisa ka rabnay qofka magaciisa ka rabnay ha saaxiib macay ha qof ani oo waxa igala dhaxaya ma intuu ku yimaado dhaa qofkaas ii tijaabi ha qof wax ka leexayaan waa ii tijaabi la okay asaan markaan yadi haye aniga saaxiib macay nin iska mashquulsan oo iska shaqeeyo hadda taan shaqadeeda ay ku jiray marka mashquul ahay teeda kale aan iska gaar leeyahay maxaa leedahay nin iska gaar leeyahay hadda waa sii socdaa wadada ku jira boosaaso sii socdaa haye magal haye saaxiib macay marka aniga laba reer aan leeyahay hada laba reer leedahay waxa ka rabnaa hal qof la joogo qofkaas magaciisa sheegtay maya ani laba reer aan leeyahay ma sheegay qof uu yaasi u taala balse labadooda mid ay tahay ilaahay rasuulku soo maqla adiga waa maqlay markaas ay ka tahay qoftu way ga furantay maxaan aday qof ay tahay qoftaas labadooda mid ay tahay adiga naay si ku imaad soo fadhiyo kiishay ninkaas ii tijaabi waxa iga leeyahay ha waxa soo kale waa la baahan leeyahay ma dimaado mid ay tahay ma aqaani balse mid ay tahay way ga furantay igu dib la hadal beebiyo halo beebi ya maxaa taa waxa ku hadlays ya maxaa taa beebi waxa ku hadashay waxa ku hadashay ay tahay adi xeetaa nin adurtiya way dimi ikraana miswaa nasteexo nasteexaya allah beebiyo nasteexaya dhaha xaaskay way weyna ka fiican tahay meelena joogtaa reerkeeda dhaqay ilmaheeda heesta adi waxa ku dhaqmay xaway beebiyo idma dhiblada waxa social media dhan ka socotaa anna waa iska ani waa ogtahay waxaas inaan gelgelin aan dabeecadaas leeyahay waxaas aan diraagiya oo iska shaqeysto balse adi waxa taxaba ani xilligan laga bilaabo waqti uu yahay waa iga furantay saddexdaadana qabtaa maxaa fadlaysaa saddexdaada qabtaa muran ma jirtaa reerkiina xitaa waxaas ani aadima ka kuri joogo aad xadabina asaga kugu sheega waa iga furantay xilliga laga bilaabo bilcad intaan guriga tii boorsada bisha xitaa soo qaaday alaabta kale xitaa gabadha wiil kay wallahi ninka ma soo ballameen wax badan la isweydiinayo marka balse labadooda mid ay tahay ilaahay rasuulku soo maqla adiga waa maqlay markaas ay ka tahay qoftu way ga furantay عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبتنا داوانا يسو دوادا ميل وليبا الدنيا ka joogtaan caawa waxaan magaalada Muqdisho kula kulmay gabar waayahan aad waliba maalmaha social media ku aragteen magaceedu waxa la yiraahdaa Ikraan oo ku soo koobaya intaas ku soo koobaya magaceeda laakiin social media ku aragtaan iyadoo telefoon intii si public ah oo la daawanayo la wacay nin xaajigeed ahaa kadibna si live loo furay arrin waxay ahayd social media aad iyo aad u qabsatay oo saameyn ku yeelatay dad badan ay ka sameeyeen reaction ama falcelin xoog leh ay ka sameeyeen waxa kamid ah dadkii ka damqaday oo aad u dareemay
aada uga naxay in si life gabar Soomaaliyeed si life ana runtii de loo furay ikraan ku soo dhawaanay ikraan soo dhawo wadhawaha walaalkay shukran wadhawaha ikraan bal maxaa ku kalifay horta su'aasha ku weydiinaa dadkan isweydiinayaan inaad ninkaaga wacdo iyadoo la duubayo kaamirada maxaa ku kalifay wallahi waxa igu kalifay aboo dad badan oo waxa arkay tijaabi jaceylkaaga barnaamijkan ee gabdho badan oo faa'iido ka qaadayaan arkay anigoo isha xaajigaada suuqa meel aadey ka doontay meesha midkan soo maraa arkay wiil meel taagan oo tijaabi jaceylkaaga gabdho ka duubayaan arkay maasha Allah wadaas waa ku soo leexday codsiyan weydiistay boomi isma kartaa haan dhahay okay wada soo dhawo dhahay marka barnaamijkii aan tijaabi maagayne wallahi waxyaala qaaran ka qaaday oo lama filaan ah kulli waa aragteen wixii dhacay waa gartay dadka la yaabaan kamid aha dadka qaar waxay isweydiinayaan gabadha ma jilaysay ma runay ka ahaayeen ma riwaayada wixii ahayd ninka ma soo ballameen wax badan la isweydiinayo marka bal dadka si sax ah oo uga sheegaya waxay ugu dhacay dadku xanuunka qabto kula dareemayaan hadda adaa kaliya dareemaya marka bal noo sharx wuxuu maxay ahaayeen horta wallahi boo qof jecel ma jiro ina macnaha been ama riwaayad ahaan been dib loogu geysto qof jecel ma jiro waa wax dhacay ninkii wuu joogaa hadeertaan oo caruur baan u dhalay waa sax wuu joogaa waana wax igu dhacay ninkii gabar dhalay ama la dhalatay aan dareemi karo gabar dhibka loo geystay waxa ay tahay wallahi waxaan u badantay laba caruur u joogta gabadhan sidii sheegayso aad maqlaysaan labadiina de isagoo fudud macalla ilmihi ku furay xanuun runtii aad u xoog la waayo waa gar adigu marka caruurta laga soo tago meeqa sana wada deganeedeen oo ninkaagu ahaa muddo 4 sano ha wada nooleen meesiga 4 sano waxaan kugu soo dhicin oo maalinta kugu soo dhacay maxay ahaayeen waxa aniga furiinka dadka furiinka la naxay laakiin aniga waxa la naxay banaa kale ba ii sheegayba mun filayn wallahi furiinka marka laga soo tago waxba ka dareen waa soo aragteen labadii muuqaalba kii hore iyo kii dambaba gabadha arrinta si run ay ugu dhacday awalna waxay ka ahayd say idin sheegtayba oo soo aragteenba in ay barnaamijkaas iska socday ka qayb gal un xaajigaaga balbaar maxaa cusub oo soo kordha camal laakiin ay kala kordhacday arrin ma arkin oo ay filan weysay gabadha in la furay bulshada dhanka wada naxsaneed oo baraha bulshada lagu dhex furay ayadoo muuqaal si toos loo tabinayo arrin nagu cusubeen ahayd subxaanallah laakiin gabadha waxay dhahday aniga furiinka maba ka nixin dhahday ee naagta cusub oo imaatay ka naxday ninkana nin wuxuu ahayba neerfoos ah gabdhaha barnaamijyadaas ka qayb galaayo horta nin aad shukaansanaysid sidoo kale hadaa barnaamijkaas inta ku tijaabisid naag iyo wax kusoo baxdo aad ku kala dhamaantiin wax weyn maahan laakiin gabdhaha familada ah gabar walba ninkeeda way taqaanaa dabeecadiisa iyo habdhaqankiisa way taqaanaa hadduu nin kulul ku qabo fadlan barnaamijkaas oo kale isku tijaabin ilaa ninkaaga dabeecadiisa waa taqaanaa soo ma haddii nin iska caadiyo ciyaalka xaafada oo ku qabana iska tijaabi markaasii wixii kaaga soo baxo waa caadi laakiin niman kulkulula jiro oo kaftankaas iyo waxaas aqoonin intaas baa kula soo dhaqmaysa dabeecadiisii waa taqaanaa marka barnaamijkan yarka aad ka qayb gasho intaad ku fashilmi lahayd oo bulshada horteeda lagu hor dalaaqi lahay gabdho waxaan dhihi lahaa hala iska dhaafo walba si dadban ayadoo kaamirad shidneen hala tijaabiyo halkaas wixii kasoo baxo markaas ku qanac midda kale wiilka si haddii loo fiiriyo waxaa la is dhihi karaa gabadhan afka hore ka saarneed si haddii loo fiiriyana wuxuu dhahay labada gabdhood labaan qabaahu dhahay labadaba midkay tahay waa iga furantuu dhahay waxaad dareemaysaa marka inay dabeecad ka tahay oo tii cusub hadday ahaa lahayd meesha ku furmi lahayd ilaahaba meesha geynin tii weyneedna intay noqotay ay meesha ku furmatay marka barnaamijkaas wiilaa soo abaabulo kow wiilishaan kaleeto waa wax dad gadaal uga soo biiray oo yacni youtubera kaleeto inay yihiin amaleela laakiin wiil kaleeto reer Nairobi ku barnaamijkan lagu bartay dad badan way ku kala hareen oo ma arkin dhaawacyo fara badan soo gaaray dad dhowr sano isla socday oo isqiyaamayay iyo maxaan ku raahday dad daacadana meeshay ma arkin xiriirkoodii uga sii socday marka barnaamijkaas qasaare iyo faa'iido labadaba wuu wataa haddii aad qofka ka shakisan tahay waxaa ila qurux badan adoo kaamirad soo hor istaagin in aad si dadban telefoon qof kaleeto aad isla barnaamijkaas kale adoo koobiyeenay inta samaysid aad qofkii ku koobiyeysid oo aad qofkii ka wacdid wixii markaas u qarsoonaa si adiga iyo qofkii markaas kula joogay la idinkuga ekaato oo banaanka aan la keenin ayaamahan dambana barnaamijyada qaar oo la sameeyo si qof walba oo youtuber oo views u helo
ما قف ببرنامج اسكسو ألفتا لكن برنامج كان محالي كرا وبرنامج وقصارها بدنا سي هدي لو فيريانا ugu faa'iidada badnaa waxa arkaysaa dad dhowr sano 5 sano 6 sano xiriir soo sameeyay haddana qof kamid ah uusan xiriirka si daacad u wadin qofkii 5 sano waqtiga ka soo dhumay arintaas uu ka naxaya isla markaasna qofkaas go'aan ka qaadanaya saasoo kale qiyaanadii soo afjaraysa faa'iido u tahay markay reeraha ku dumayaan waa qasaaro oo hadda reerkaan oo kale 4 sano soo dhisnaa gabadhan waxba meesan ogeyn reerkeedii si ma arkino public ku dumay wayna qorneed horta hore oo wixii halkaas inta suuqa wax ka doontaan wixii tiraad wiilashan aan soo agmarayo aan barnaamijka inta ka codsadan sida ku galay ninkaas inuu ma arkino wax u qarsoon yihiin inuu ilaahay ku tusaayeen waa iska macquul laakiin barnaamijkan qasaaradiisu wataa marka gabar ahaan marka gabar tahay ama qof dumar tahayna ma ku fiicno haduu ninka ama hadal xun kugu la hadli lahaa ama uu meesha kugu furi lahaa ma ku fiicno in public imaato sheekadaas si gaar ah qofka u baroobeen kartaa marka gabdhaha waa uga digayaa barnaamijkan haddii xiriir la oodin ka dhaxeeyo waa sameyn kartiin laakiin gabdhaha la qabo si dadban u tijaabi kadib wixii go'aankaaga oo ku soo baxo oo ku qanacdid qaado laakiin maxaan ku raahdaayay gabdhaha la qabo mar kale tuu uga digayaa in barnaamijkan public ay imaadaan gabdhaas dhaawac weyn soo gaaray way ku celcelinaysa hebel maxaa kugu dhacay asna ninna xame ahayn waa aragteen waa iga furantahay guriga dharka kala bax kaliya taagnaa ilaa meesha ilmaaba yaalayba kaliya waxaan u moodayaa labada qofood bas inay isqabaan walow aan aaminsanaay marka ugu horeysay oo qaybta koowaad aan soo arkay inay baraanki tahay sababtay tahay maalmahan youtuberada waxyaabaha ay soo dhigayaan ma la aamini karo 99% hala ka run ah inta kaleeto waxa waxay wadaan ku kala kacsi views raadinayaan baraanki haday tahay maxaan ku raahdaa publican waxaan lagu sameeynayo kulligood inta badan qaarkood waa baraanki qaar runna way jiraan marka wixii maadaama ay beenti badatay lama aamini karo markaan arkay wiilkan wariyaha oo wareysanayo saasa barnaamijkan uga soo hadlay gabdhaha la qabo wax waa tijaabi kartiin laakiin kaamirada soo hor istaagin si dad ban ku tijaabiye taas aan idin kula talinaya si aysan idin kugu dhicin gabadha waxay dhahday dhibkan aniga ugu dhacay tiraahday waxa dareemi karay tiraahday qofkii gabar la dareemi karay dhahday يعني ويلكي قبر الألتي وكليته يقفك دمر دريم كله هذا وارن ويل والبولاشيس وحوجي علي هاي إن ولاشيس تهاي قبر ده أبو قيمة بدن قبر ده أبو نلاش قرحون إن ولاشيس محنكر هذا سبب لقى لافرو أو يعني هذا لا قرحون اللي يقول هذا أيد يوني جبسن إيماش قصتكتو مقالك وبرها بالشدة لانجارو يعني ولالك ما أنت ممكن فرحة أيضا ممكن فرحيسو maxaan ku raahdaa asxaabteedii iyo dadkii maxaan ku raahdaa waa iska taqaana dumarka waa iska xan iyo mashquul badan yihiin dadkaas oo kale u jabaysaa waa lagu sheekeysanaya wax ay bari qarin karto ay dabooli karta ma ahan si publica lagu furaysaana lagu yeelo ninka naago la guursaday wixii markii ay si dadban u maqashay ee qarsan lahayd xataa ee qofkii markaas cadawgeed u aragtay ee ka qarsanay si aan loogu sheekeysan waa iska taqaana dariska xataa isku mashquulaan si banaan ah ma arkino oo qarsoomeynin ee gabadhii arintii ugu dhacday marka waa wax laga xumaado gabdhaha kaleeto oo yani reeraha lehna waxaan leeyahay tan 10 ha idin noqoto haddii ninku qabo kaamirada hortiisa ku tijaabin tijaabi oo yani wuxuu yahay ogaa ku diiday taas laakiin kaamirada hortiisa ku tijaabinin waa nin bil aadam wax kasta ka iman karo ma fahanteen gabadhan kalsooni u tijaabisay laakiin waxaana ka daba maray yani wax ay filaysay ama ku tashanaysa meehan waa nin 4 sano la nooleed mana la fahmi karo qofka haduu ugu tala galo inuu ku qiyaamo lama fahmi karo rag iyo dumarba marka ani mar kale waxaan ku celcelinayaa si public gabdhaha la qabo inaysan wax u tijaabin laakiin dadka xiriirka ka dhaxeeyo hayacada waa ayaga moogta waa no face waa u tijaabi karaan muuqaalka inta ku soo gaarteen oo ku mahadsantihiin muuqaal mid inta ku kulmeen waxa idin kaga tagay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh